بسم الله الرحمن الرحيم مدنا يالي مروين أبين وناكسن waxa caawa halkan noogu marti ah deeq bixiyaal ka socda wadanka Ingiriiska Denmark Norway iyo Holland deeq bixiyaashaas oo caawa inoogu yimid sidii aan uga wada hadli lahayn mashruuca si dhamaanaya SDF1 waxyaabihii uu qabsoomay waxyaabihii aan aad u shaqayn mashaariicdii la fuliyay iyo sidii ay wada shaqaynta u lahaayeen mashruucaasi SDF iyo dawladda Somaliland waxaanu ka wada hadalay deeq bixiyaasha baahiyaha jira waxyaabihii la qabtay sida ay u dabooleen baahiyii jiray waxyaabaha hadda taagan sidii loo sixi lahaa mashruucaasi wixii qabsoomay waxna looga baran lahaa mashruucaasi deeq bixiyaashu sidoo kale waxay noo sheegeen in ay aad ula dhacsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay wadanka siyaasadaha ama qorshihii xisbiga ku guuleystay wadanka mashruuca ama qorshaha qaranka ee labaad NDP2 waxaanay nala qaateen inay caawimo naga siin doonaan ama nala shaqayn doonaan mashaariicdaasi waxa kale oo nasiib wanaaga inaan caawa halkan isla qaadanay in mashruucan SDF1 uu ku xigi doono SDF2 marka uu dhamaado mashruucani oo ku eeg ilaa bisha 8 ee sanadkan marka mashaariicda socota dib u eegidoodii wasaaradda qorsheynta iyo deeq bixiyaasha ayaa isla qaatay waana dib baan u eegi doonaa wixii qabsoomay waxna waanu ka baran doonaa marka inta laga gudbo deeq bixiyaashu ama wafdigan heerka sare ahi waxay naga wareysteen qorshayaasha u qorshaysan dawladda sanadada soo socda wasaaradda qorsheynta oo anigu wasiir ka ahay waxa ay hor dhigtay qorshayaasha sanadka dawladda hor yaala iyo wixii ugu qorshaysan sanadada soo socda marka waxaanu isla qaadanay inay waxyaabo badan inaga caawin doonaan nala shaqayn doonaan waxa kale oo u sheegnay inay mustaqbalka fog anagu dawlad ahaan aan rabno inaan isku tiirsanaano aananu qabsano wixii mashaariica wada shaqaynaya inaga xeeyaan dadka dawladaha aanu saaxiibka nahay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin kulankaasina wuxuu noogu dhamaaday jawi aad u fiican iyo ballanqaad inaanu sii wada shaqayno